waxaynu ka jawaabnay weeraro nagaga imaan lahaa dhinaca argagixisada Xamaas waxaynu duqeynay oo burburinay salagyadii military ay ku lahaayeen goobo ku yaala koonfurta magaalada Gaza oo ay ka mid tahay magaalada Khan Younis halkaas oo ay ku sugnaayeen cutubyo ka tirsan ciidamada ururka Xamaas sidaas waxa lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay militariga Israa'iil dhankiisa afayaan sare oo hadlay ururka Xamaas oo wareysi siinaya warbaahinta Reuters waxa uu sheegay inay ka jawaabeen weeraro argagixiso oo uga yimid dhinaca Israa'iil taas oo lagu duqeeyay goobo muhiim ah oo ay ku sugnaayeen Falastiiniyiintu waxa uu wacad ku maray inay sii wadi doonaan dagaalada joogtada ah ee ay ku baacsanayaan Israa'iil si aad wax badan uga ogaatid xaaladda Israa'iil marka hore tan ugu soo biiro page-ka soo raac filowda Alexa wararkeena si share gareex aynu ka horeynay xiisada u dhaxaysa Xamaas iyo Israa'iil ayaa mar kale cirka isku shareertay ciidamada Israa'iil ayaa soo wariyay inay duqeymo la beegsadeen goobo muhiim ah oo ay ku sugnaayeen ururka Xamaas weerarkan oo dhacay subaxnimadii horeete ee maanta iyo Arbacada waxa la sheegay inuu ahaa kii ugu xoogganaa tan iyo dagaalkii 11 maalmood socday ee ka dhacay magaalada Gaza bishii May arintani waxa ay sheegtay dawladda Israa'iil inay kaga jawaabayso kadib markii dhinaca Falastiiniyiinta ay uga yimaadeen buufooyinka sameeya qaraxyada taas oo ay sheegeen inay sababtay in dad badan uu goobo muhiim ah qabsado halkaas oo waaxda dibdamiska Israa'iil ay sheegtay in khasaare lixaad uu ka dhashay dawladda Israa'iil waxa ay sheegtay inay bartilmaameedsatay iyadoo arintaasi ka jawaabaysa magaalada Gaza meelo kale oo koonfurta ka xiga iyo magaalada Khan Younis halkaas oo ay ku sugnaayeen cutubyo ka tirsan Xamaas saldhigyada ay ku lahaayeen sida ay ku warameen militariga dalka Israa'iil waxay ku faantay inay burburisay goobo muhiim oo ay suurtagal lahaayeen in laga soo weeraro Israa'iil waxay wacad ku martay inay sii joogtayn doonto ka hortagitaanka weerarada kaga imaanaya waxay ugu yeertay argagixisada Xamaas iyo ururada kale ee garab siinaya dhankiisa sargaal sare oo Falastiiniya oo la hadlay wakaaladda wararka Reuters waxa uu sheegay in Falastiiniyiintu ay sii wadi doonaan baacsiga iyo iska caabinta geesinimada leh ee ay ku difaacayaan xarumahooda iyo dadkooda si ay uga hortagaan duulaanka kaga imaanaya dhinaca Israa'iil Reuters waxa ay sheegtay in Xamaasiyiintu iminka ay mar kale isku diyaarinayaan weerar kaga yimaada dhinaca Israa'iil oo kale xiisada ayaana dhirka isku sii shareeraysa deganaansho hore looga dareemaya magaalada Gaza iyo nawaaxigeeda waxay iminka u muuqataa in mar kale cirka loo laalay isla markaasna dhinacyadu ay u diyaar garoobayaan dagaalo ka foolka Israa'iil oo ka jawaabaysa xaaladda kacsan ee u dhaxaysa iyada iyo Falastiiniyiintu waxay warbixin degdeg ah u dirtay dhexdhexaadiyaasha masaarida ay arintani ku howlanaa maalmihii la soo dhaafay xaaladdan hore u dejiyay waxa ay ku wargalisay in xiisada dhinacyadu iminka ay cirka isku shareertay taas oo ay mas'uul ka yihiin Xamaas waxa ay sheegtay in wax walba oo dagaaladaasi ka dhacay mas'uuliyadeeda ay qaadan doonaan ururka Xamaas kuwaas oo abaabul xooggan oo military iyo samaysashada hub casri ah ka waday koonfurta magaalada Gaza iyo goobo kale oo ay ka mid tahay Khan Younis waxa ay sheegeen in ay Israa'iil aysan mar dambe u dulqaadan doonin daasiga uga imaanaya dhinaca Xamaas dhankooda Xamaas waxa la soo wariyay in tan iyo saakay oo Arbacada ay bilaabeen howlgalo iyo dhaqdhaqaaqyo cusub waxa la sheegay in hubka darandooriga u dhacay gantaalada lidka diyaaradaha ay u soo bixiyeen goobo gaar oo loogu talagalay inay iskaga difaacaan weerarada kaga imaanaya dhinaca Israa'iil waxa la sheegay in iminka ay mar kale suurtagal tahay inay ku garaacaan gantaalo gudaha wadanka Israa'iil ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Israa'iil waxa la soo wariyay inuu kulamo la yeeshay saraakiisha ciidanka kulamadaas waxa sidoo kale la talin iyo korjoogteyn ku lahaa ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu kaas oo xiisada hore ula socday waxa la sheegay inay rumaysan yihiin Israa'iil iyo dawladeeda iminka gacmaha Falastiiniyiinta arrinta ay ka weyntahay ayna jiraan dawlado kale oo arrintaani ku lug leh si weyn ayay u aaminsan tahay Israa'iil inuu hub iyo saanad kale taba ay dawladaha Turkiga iyo Iiraan iyo dawlado kale siinayaan Xamaas oo maalmihii ugu dambeysay qorashada ciidamada ay ahayd mid si weyn looga dareemayo deegaanada ay ku sugan yihiin waxa la sheegay iminka inay isku arkaan awood u babaadhigi karta Israa'iil ayna doonayaan
inay dagaalo kafool la galaan maadaama 11 bari oo hore dagaal u socday ay sameeyeen wacdaro si weyn u fashilay quwaddii military ee ay sheeganaysay dowladda Israa'iil. iminka xiisaddu waxaa la soo wariyay in cirka isku shareertay. dad shicib ah ayaa sidoo kale la sheegay in duqeymaha ay ku waxyeeloobeen. warbaahinta labada dhinac ka koobinaysa ma aysan sheegin khasaaraha rasmiga ah ee ay soo xaqiijiyeen, balse waxaa la sheegay in dad rayid ah ay waxyeello ka soo gaartay, sidoo kale tan aan la saadaalin karin khasaaraha rasmiga ee duqeymahaasi ka dhashay. waxaa la arkay dad badan oo shicib ah oo goobaha duqeymuhu ay ka dhaceen iskaga guuraya si ay naftooda uga badbaadsadaan. waxay arrintaani timid ka gadaal wax yar oo kadib markii dadka qaarkood ay dib ugu soo laabteen goobahaasi oo horay ay uga barakaceen dagaaladii 11 maalin socday. dadka shicibka ee reer Falastiin waxa ay sheegayaan in arrintan ay tahay daandaansi kaleeto oo mar kale la doonayo in lagu dhibaateeyo, balse shacabka reer Falastiin iyo ururkooda Xamaas horay waxay u diideen in dowladda Yuhuudda shacabkoodu ay dhigaan doodbaxyo ay ku xusi lahaayeen maalinka calanka oo ay ku xusaan xilliga ay qabsadeen magaalada Qudus iyo goobaha kaleeto ee reer Falastiin ee muhiimka ah. war-saxaafadeed Xamaas ay soo saartay oo kooban waxa ay ku sheegtay inay sii wadi doonto difaaca iyo ilaalinta dhulka barakaysan, ayna difaaci doonto sharafta iyo karaamada shacabka reer Falastiin. waxaa sidoo kale war-saxaafadeedka ay soo saareen Xamaas dadka lagu faray inay muujiyaan foojignaan dheeri ah ayna garab siiyaan dagaalyahanada Xamaas iyo ururada kaleeto garab siinaya si looga hortago weerarada Israa'iil. cambaareen ayaa loo jeedinayaa dowladda Israa'iil iyo sidoo kale kooxaha kale ee ku lugta la arrintani. waxay u muuqdaan dowladihii dhexdhexaadinta ku jira oo ay ugu horeysay dowladda Masaaridu iminka inay la kulmayaan jab xooggan oo ku aadan dhinaca diblomaasiyadda maadaama xiisaddu dib u soo cusboonaatay. horay loolan culus oo u dhexeeya Turkiga iyo sidoo kale Masar oo ku aadan cidda deji karta xaaladda ka taagan magaalada Gaza. waxay ugu dambeyntii Masaaridu ku guuleysteen inay xaalka dejiyaan ayagoo dhinaca Israa'iil ku qanciyay dhinaca Falastiin ku qanciyay. balse dowladda Masaarida sidoo kale waxa la sheegayaa in ay taakuleen xooggan la garab taagan tahay shacabka reer Falastiin, gaar ahaan dhinaca caafimaadka iyo adeegyada bulshada. mar walba iyo saacad walba xogihii ugu dambeeyay halkan kala soco nagu soo biir oo nala soco leegsaar flow share garee wararkeena markaas ay ku soo gaaraan.